bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waa xanta wararka ku biir ka mid noqoda wadaasha ku xiran si aad u hesho warar warbixino waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doona hadduu alla weyn raalli ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal. waxaa ka mid noqon doona cali cabdi wardheere cali yare, mid ka mid ah saraakiishii ku dhadhawaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo la sheegayo inuu wada hadal kula jiro Villa Soomaaliya. waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdo arrinta ku gadaaman oo barnaamijkan idinkugu soo gudbin doono. socdaalka Qatar ee saraakiisha Nisa Qatar oo dalkeedii iskugu geysay Mahad Salaad, Cabdilaahi Aadan Kulana Jiis iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir maxay karkarinayaan. waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdo arrinta ku gadaaman oo barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona hadduu alla weyn raalli ka noqdo. sidoo kale waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aan idinkugu falanqeyn doono daawadayaal saaxiibayaal waxaa ka mid noqon doona Deni Saciid Cabdilaahi Deni iyo dastuurka maamulkaasi Puntland maxaa kala haysta. waxaan idin soo gudbin doonaa Saciid Cabdilaahi Deni oo ku tumasho xagga dastuurka lagu eedeynayo. warbixin ayaan idinkugu soo gudbin doonaa kuna falanqeyn doonaa. soo dhawaada ku biira ka mid noqda daawadayaasha ku xiran halkan si aad u heshaan warar dhacdooyin iyo warbixino. fadlan haddii aad ku cusub tahay la garay shargaray qaybta hoosan arahdaada waxay kula tahay ku dhaaf adigoo la wadaagaya saaxiibadaada warar warbixino iyo dhacdooyin. cali cabdi wardheere waa Cali Yare Cali waxa uu ku jiraa Villa Soomaaliya, saraakiishii ku dhadhaweyd madaxweynihii hore ee Soomaaliya. wadahadalo ayaa iminka u socda madaxweynaha iyo sidoo kale saraakiisha sare ee xisbiga CUPD kadib ergo iyo wadahadalo markaasi jufo hoosaad ay yihiin oo isagu markaasi wadahadaladaas u qaaday. warar soo baxay ayaa sheegaya in gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare Cali uu wadahadalo baacyo siyaasadeed ah kula galo ama kula jiro madaxtooyada Soomaaliya. Cali Yare oo si indhalaan ah ama si weyn u taageera madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa 5 bilood kadib bixitaankii Farmaajo weli sii haya xilkiisa amniga iyo siyaasadda, xilli la filayay in xitaa markaasi aanu toddobaadyo ka dambeyn doonin. waraanu helayno ayaa tibaaxaya in Cali Yare Cali uu xubno aad ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay wada hadallo maalmo socda ku leeyihiin Muqdisho, iyadoo haddii ay wada hadalladaasi soo xirmaan la filayo in Cali Cabdi Wardheere oo loo yaqaan Cali Yare Cali uu ku soo biiro kooxda hoggaanka dalka haysa. warku wuxuu intaa ku darayaa in wada hadalladaasi ay hoggaanka u hayaan siyaasiyiinta beesha Bargadir ee Xasan Sheekh aad ugu dhow xubno kale oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka tirsan. xog lagu kalsoon yahay ayaa sheegaysa in Cali Yare Cali uu aqbalay soo jeedin ka timid Villa Soomaaliya isla markaana uu ka tanaasulay eedeymaha iyo markaasi xad-dhaafka ahaa iyo mucaaradnimada madaxda dowladda, taas beddelkeedana loo ballan qaaday in lagu abaalmarin doono wax u qalma oo uu ku qanacsan yahay. xoguhu waxay sheegayaan ama intaa ku darayaan in Cali Yare Cali uu booska gobolka Banaadir awood qaybsi ahaan horey ugu fadhiyay laga wareejin doono, isla markaana jago kale oo uu ku qanacsan yahay loo markaasi ballan qaaday, walow aan weli la aqoon waxa ay tahay ballanqaadkiisa iyo halka loo wado. xubno ka mid ah Mahad Maxamed Salaad, taliyaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre, wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi, wasiirka dowladda madaxtooyada Abshir Buqaari iyo xubno kale ayaa si weyn ugu shaqeynaya wax ka beddelka mowqifka Cali Yare Cali oo ka mid ahaa kaadirinta waaweyn ee nabad iyo nolol. si kasta oo ay xaaladda noqoto, qoraal uu boggiisa Facebook kol sii horeysay soo dhigay ayuu si weyn ammaan ula duldhacay madaxda hoggaanka dalka haysa xilligan, kuwaasi oo uu ku tilmaamay qorax joog isla jaanqaadi kara oo is-aaminaadoodu ay aad u sareyso. wuxuu si gaar ah u xusay madaxweynaha oo uu ku tilmaamay inuu yahay oday Soomaaliyeed oo uu si gaar ah abaal ugu hayo, iyagaasimaaniisa Mahad Maxamed Salaad oo uu tilmaamay inuu saameyn ballaaran leeyahay xildhibaannimada uu ku matalo. Cali Yare ayaa sidoo kale u mahad celiyay gudoomiyaha cusub Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo uu sheegay inuu kalsooni gaar ah u tusay. aniga qiyaasteyda rajada ugu weyn ee laga qabi karo saaxiibada
talada dalka ku guuleysatay waa inay yihiin rag dhammaantood markaasi qaran joog ah oo aan qurbaa ka imaan, sidoo kale badankood ay khibrad u leeyihiin xafiisyada ay hadda tageen oo ay horey u soo maamuleen sida xafiiska madaxweynaha iyo kan gobolka Banaadir, iyo tan ugu dambeysa oo ah inay yihiin rag muddo fog isla soo wada shaqeeyay oo heerka is-aaminaad ee dhexdooda yaal ay aad u sareyso, ayuu yiri Cali Yare Cali oo ka faalunaya booqashada xafiiska gobolka booqday Isniintii Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre, isla markaana uu kula kulmay xafiiska siyaasadda iyo amniga gobolka Banaadir. Cali ayaa horey uga mid ahaa taageerayaasha mayalka adag ee kooxda Nabad iyo Nolol, isagoo lagu xasuusto mowqifkiisii mayalka adkaa ee ku taageeri jiray Nabad iyo Nolol, walow maalmahan isbedel laga dheehan karo qoraaladiisa. Qatar waxay kulmisay xubnihii saraakiisha ahaa ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya, kuwii hore iyo kuwa hadda. Dalka Qatar oo dalkeeda markaasi isugu geysay Mahad Maxamed Salaad, Cabdulaahi Aadan Kulane iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Wararka aynu helayno magaaladaasi Dooxana ka helayno ee dalkaasi Qatar caasimadu ah waxa ay markaasi sheegayaan inay ku wada sugan yihiin dalkaasi yar ee qeejka dhaca ee lacagaha badan haysta. Agaasinka hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA, Mahad Maxamed Salaad, agaasimihii hore ee NISA, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo xildhibaan Cabdulaahi Aadan Kulane. Weli si faahfaahsan looma oga sababta saddexdooduba ku kulmisay Qatar, balse xogaha hoose ayaa sheegaya in dowladda Qatar ay u yeertay xubnahaasi. Mahad Salaad oo sabtidii xilli maqrib ah diyuurad ka qaaday Muqdisho ayaa labadii cisho la soo dhaafay waxa ku sugnaa hodheel ku yaala Dooxa, iyadoo markaasi xog hoose sheegayaan inay socdaan qorshe ay damacsan tahay in la isku fahmo, xubnahaasina ay u wada shooraan, taasi oo iyadu markaasi qayb ka ah waxyaabaha iyo dhaqdhaqaaqyada iminka socdo. Taliska nabad sugidda Soomaaliya kama aysan hadlin safarka Mahad Salaad ee Dooxa waxa uu daaran yahay, waxaase saraakiisha la shaqeysa agaasimaha NISA ay sheegeen in socdaal shaqo uu baxay. Fahad Yaasiin, Mahad Maxamed Salaad ayaa iskugu markaasi wajahay dagaal adag wajiyo badan leh oo ka dhaxeeya, taasi oo ugu weyneed arrintii Grant Halil Faarax oo midba midka kale uu ku eedeeyay dilkeeda inuu wax ka ogaa. Xildhibaan Cabdulaahi Aadan Kulane oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, saaxiib dhowrnala Fahad Yaasiin ayaa qayb ka ah xubnaha dowladda Qatar ee ugu yeertay dalkeeda, isla markaana si dhab ah loo ogeyn waxa laga wada hadlayo. Sirdoonka Masar oo gacan saar la leh agaasimaha NISA ee Soomaaliya, Mahad Maxamed Salaad, ayaa sheeda kala socda Dooxa iyo kulamada xukuumadda Qatar ay ka wado kulana kulmayso Mahad Maxamed Salaad oo xiriir aad u dhow markaasi leeyihiin. Inkastoo xaaladda noqoto haddii aan arrimaha inta kaga dhaqaaqno Deni ayaan qaban doonaa. Saciid Cabdulaahi Deni dastuurka ayuu la sheegay inuu ku tumanayo Puntland, wada tashiyo yeesheen cuqaasha siyaasiyiinta, aqoonyahanka, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool waqooyi bari Soomaaliya. Waxaa lagu go'aamiyay in Garowe lagu qabto shir looga wada hadlayo, ujeedadiisuna yahay in looga tashado ayaha dadka degan deegaanada waqooyi bari Soomaaliya iyo in la dhiso maamul dowlad goboleed, taasoo ka dhalatay dowlad goboleedka Puntland sanadkii 1998. Heshiiska bulshadaasi ay ku gaadhay in dowlad goboleed la wada yeelo 98 waa saldhig u ahaa axdiga nidaamka iyo qaab dhismeedka dowladda, sidoo kalena si ku meel gaar ah u ahaanaya dastuurka maamulka Puntland, una sii gogol xaadhaya in la helo dastuur afti dadweyne loo qaado sida ku cad qodobka 35 ee axdiga. Si kasta oo xaaladda noqoto, Saciid Cabdulaahi Deni waxaa si weyn loogu eedeynayaa inuu markaasi dhaafay arrimaha ku gadaaman qodobada qaar ee dastuurka maamulkaasi Puntland, taas oo uu markaasi Saciid Cabdulaahi la sheegayo inuu dhabar jibiyay ama uu ku tuntay. Si kasta oo xaaladda noqoto, waxaa la sheegayaa in dhammaan qodobadaasi uu doodda ugu weyn ee Saciid Cabdulaahi Deni uu wajahayo. Qodobka 8aad aan isweydiino qodobka 8aad madaxweynuhu waxa uu awood u siinayaa. Qodobkani wuxuu dhigayaa dhammaan mas'uuliyadaha saaran madaxweynaha Puntland iyo awoodihiisa iyo ciddu isugu magacaabi karo oo kala ah
xubnaha golaha wasiirada, madaxda hay-adaha madaxa bannaan iyo sida hanti dhowrka, gudoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamadaha sare, madaxda kale ee dastuurku ama shuruucda kale ee ogol yihiin. Haddaba aynu u soo daadegno, madaxweynuhu xagee ka soo geli karaa magacaabidda shaqaalaha rayidka? Ma jirto haba yaraatee xeer u banaanaya in madaxweynuhu si toos u doorto xubin ka mid ah shaqaalaha rayidka. Waana tallaabo sharciga darro ah oo aad u cad. Meesha keliya ee uu ka soo geli karo waa kadib marka ay soo dhammaystaan habraacii uu dhigayay xeerka shaqaalaha rayidka aynu kor kaga soo sheekaynay, inuu digreeto ku soo saaro shaqaalaha darajadoodu u dhaxayso A1 ilaa B5. Waxaa markaasi ku soo gunaanudeenaa maqaalkan talooyinka kooban oo aanu muhiim ahayn. Guddida shaqaalaha rayidka in loo madax banaaneeyo shaqadooda, laga dhigo guddi shaqeeya dhaqaale miisaaniyad leh oo awood sharci adeegsanaya. Sida ay shuruucdu dhigayaan, waa in xulashada shaqaalaha rayidku ay noqotaa tartan furan oo bulshada u siman tahay si loo helo shaqaale tayo leh oo bulshadooda u adeega. Madaxweynuhu inuu sharciga ilaaliyo, awood aanu markaasi qaanuunku siina aanu adeegsan. In guud ahaan hay-adaha dowladdu ilaaliyaan shuruucda dowladda u taalla si bulshaduna ugu dayato oo sharciga uga hibaystaan. In waaxda garsoorku la dhiso si ay hawshii loo igmaday ay u qareemidda dadka iyo saareynta sharciga u meel maraan.